maxaad ka xasuusataa qaraxii ugu horeeyay ee ka dhaca taariikhda geyiga Soomaaliya iyo mas'uulkii lagu doonayay in lagu kharijiyo sidee ayuu ahaa jawiga maalintaasi magaalada ayuu ka dhacay qaabkii la yaabka lahayd ee wareysiga u bixiyay mas'uulkii caanka ahaa ee markaasi qaraxan lagu doonayay in lagu kharijiyo cidii ka dambeysay iyo sidoo kale wareysi la yaab leh oo bixiyay madaxweyne Yuusuf ayaan warbixinteena maanta ku qaada dhigi doonaa hadalkii la yaabka lahaa ee uu jeediyay kaasi oo ahaa dardaaran iyo sidoo kale hadal markaasi ku socday kooxaha argagixisada ah ee Soomaaliya weerarada ka geysanaya cidii doonaysa Soomaaliya xal uga doonaysa political assassination baan sameynayaayo suicide bomb baan qarxinayaayo dad baan leynayaayo markaas aan rabaa Soomaaliya inaan xukumo waxaan filayaa aqligoodu tamaam ma ahan ama waa waalan yihiin waxna ku gaari maayaan marka dambana iyaga ayay dib ugu noqon doontaa hadii Allah idmo iyo sidoo kale hadalkii la yaabka lahaa ee uu ka bixiyay geeridii walaalkiis anigu waa isugu kaymid walaalkay iyo dhalinyaradii kale ee ciidanka ahaa ee qaraxan lala eegtay haddaba saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena halgan iyo hagardaamo muuqaalkan like fara badan saara si uu meel fog u gaaro follow saara bogeena Facebook ee halgan iyo hagardaamo waxba yaana waridin ku daalina inta aan u gudbin faahfaahinta iyo jawiga sida uu maalintaasi noqday bal la daawada wareysi uu bixiyay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo uu siiyay laanta afka Soomaaliga ah ee BBC-da oo markaasi mucaarad xoogan ku ahay dawladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya aad ku maqlayseen madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo isagoo jooga aqalka madaxtooyada ee magaalada Baydhabo aanu telefoonka kula xiriiray goordhaweey ayaa BBC waxa uu warramay qaraxii maanta lagu siiyay naftiisa ee ka dhacay magaalada Baydhabo maruu ka soo baxay baarlamaanka Yuusuf Garaad iyo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxa uu marka hore weydiiyay bal in isaga qaraxii maanta dhacay wax dhaawacii ay ka soo gaareen bismillaahir rahmaanir rahiim Yuusuf arwalta dhaawac maahay wax ilaahay ma qabo fal maanta argagixisanimo inuu ku soo qaaday waashira dadna waa dhintay labada dhinacba dadna waa dhaawacmay cidii haatan fal argagixisa doonaysa inay xal ku gaadhaan waa dad caqli xun bay la tahay waana garan karaa ku weeyeen madaxweyne kuwa atuumaysa ma jiro loo sheegayso wadanka waxa yaala caan weeye Yuusuf laakiin hadda faahfaahin diyaar uma tahay inaad ka bixiso hadda qofna magaciisa ka hadlo ma rabo waa baabayna weerarayna xaqiiqo weeye weerarayna cidii ka dambeysay wixii maanta dhacay dadka ku dhintay waxa la leeyahay nin walaalka ah ku jiray Allah u raxmado arintaas way jirtaa waa xaqiiqo Soomaaliya xaqiiqo weeye laakiin anigu way soo kaymid walaalkay iyo dhalinyarada kale oo ciidanka oo ila socotay saddex nin baa naga dhimatay naxariis Allah siiyo waqti uu leeyahay waqtigiisa baafimayo gacanka xaq daran baa dishay ilaahay shaniya raxmad bisiin doona haddii rabbi idmo cidii xaq daran wax ku dishaa waxay la tahay aqoon wax sugaya waa taban madaxweyne bal haddii aan ku sii weydiino sida wax u dhaceen ma wax wadada laydin dhigay buu ahaa ma wax baabuurtiina lagu xiray baa ahayd ma wax laydin ku soo tuuray qaraxani xaggu ka yimid haddii aad xusuusato أو بقول كذا لا دام في شيء كموي لأنه يسأله برلمان كصوب حي برلمان هو تمام في لها ما لنا حكومة ذكر شوي لو قادني لو قادني يعني هذا ما برلمان كوشيري برلمان كمان كان كصوب حي وإيه كصوب سعي وقارئ داعي شن بقولة الله وكمان بدنا يمشي برلمان كوشيري ماشي قارئ وكداعي بقول بنقول بقول كنوع ري بقول كنوع فتي أنا حوين باقعي أنا حيا كلا باقعي waxaan hubaa laba nooc oo isugu jiray qarax iyo qaarna waxa suuqay bambuha baabuurkii qaraxa lagu qarxiyay oo baabuurkii noogu horeeyay ku qarxiyay toddoba baabuur baa gubatay oo isla socotay qofkii meeshiisii meeshii uu yaal bamka wax ku qarxinayay kuwa kale oo maartay inta la ururiyay madaafiic xabadooda la ururiyay oo wadada hareerteeda la dhigay oo na meeshii aanu ka helay oo waa baarnay markaa suuqay bambuha ciidan القاعدة يارجع بحسها إنه واحد سكر السماء سامع سوالي مش أكتر. مركز بابورك أدو ودتي أو هكذا لبعض وكبد بعدين إنك صرت تدور بابور أكل جبتي. ما بدبادين بابور في جبنا ينكدر يعني أنت يجي كشيت بابورك يقول بنا ده ضبي هو قارن وحاسي هاي شيء أنا هو كبد بعدني بابور في يمينا كل أسبوع جبتي دنبس بنا. من نبى ماشي سنة كم ويسوي دبوري أو ويسوي. ما هو عيدا بالبيض بالنوت سوى عيدا ما يسوق على مركي دم شيئا كذا وقت وعدي فلكان كذا بيسي وحقيقة بناك وصادقه قف شخصيا لين ما يعينا وحكي شيء ما يو لكن عدي دوريسا الصومالية حلو قد دوريسا
political assassination baan samaynayaayo suicide bomb baan qarxinayaayo dad baan leynayaayo markaasaan rabaa soomaaliya inaan xukumo waxaan filayaa caqligoodu tamaan maaha ama waa waalan yihiin waxna ku gaari mayaan marka dambe iyagay dib ugu noqon doontaa haddii aan laydmo laakiin annagu falka noocaas oo kalea mana samaynayno kuna kici mayno haddaan dagaalamayno markiina weeraro kafool baan u dagaalamaynaayo annagu political assassination samayn mayno madaxweynaha soomaaliya cabdullaahi yuusuf axmed oo isagoo madaxtooyada magaalada baydhabo jooga goor dhawey teleefoonka ugu warramayey yuusuf garaad inkasta oo xilligaasi qaraxan lagu tuhmayey inay fuliyeen maxkamadihii islaamiga ahaa oo ay dagaal xoogan kala dhexeeyeen dowladdii federaalka ahayd kumeel gaarka ahayd oo hogaaminaya madaxweyne yuusuf haddana mas-uuliyiintii xilligaasi waxay eeda dusha ka saareen ururada argagixisada ah gaar ahaan alqaacida 18 Sebtembar sanadkii 2006 ayay ahayd markii uu jawigu isbedelay sidoo kalena goob walba uu dhiig gumuluciyay ugu yaraan 20 ruuxna ay wax ku gaareen qarax xoogan oo galgalay dhammaan daafaha magaalada Baydhabo waxaana qaraxu ka dhacay ridda hore ee baarlamaanka magaalada Baydhabo kaasi oo lala beegsaday madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed xilli uu ka soo baxay shir ay la lahaayeen mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah oo la doonayay in loogu codeeyo in kalsooni la siiyo xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi iyo qorshe hawleedkiisii 6 bilood ee soo socota madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay sidii xukuumadda federaalka cod loo siin lahaa isagoo khudbad gaaban oo dardaaran iyo waana halkaasi ka jeediyay intaasi kadibna u dhaqaaqay dhinaca iyo xarunta madaxtooyada balse marka uu ku sii baxay afaafka hore ee hoolka uu shirku ka socday ayaa waxa mar kaliya halkaasi ka dhacay qarax weyn oo lagu soo qariyay gaari qooqan ah oo nusaac ka hor bartaasi la soo dhigay kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo waliba gaadiid gaaraya ilaa 10 oo halkaasi ku basbeelay qaraxan ayaa sababay inay dhintaan inta ka badan 10 ruux oo ku jiro Korneel Jigle Yuusuf Axmed oo ay walaalo ahaayeen madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo qaar kamid ah ilaaladiisa iyo darawalkiisa madaxweynaha ayaa ka badbaaday qaraxan iyadoo aanan la xaqiijin sababta dhabta ah ee qaraxaasi dhinaca kale dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa durbadiiba loola cararay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo halkaasi diyaarad looga qaatay waa markii ugu horeysay qarax noocaan ah uu ka dhaco geyiga Soomaaliya iyo markii ugu horeysay uu qarax noocaan ah uu ka dhaco magaalada Baydhabo tan iyo intii ay soo tirtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana halkaasi ka jirtay maalmahaasi cabsi xoogan dhinaca kale madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo BBC-du ay markaasi wareysi ka qaaday ayaa bixiyay hadal la yaab lahaa taasi oo ahaa inuusan kala jeclayn walaalkiis iyo sidoo kale dadka dhalinyarada ah ee ciidamada ah ee halkaasi ku geeriyooday wareysigaasi ayaa wuxuu ahaa mid taariikhda galay oo ka muuqatay la jeclo iyo in madaxweyne Yuusuf ay isugu mid yihiin ciidamadii la weeraray iyo sidoo kale walaalkiis ayna dhamaantood yihiin dhiigiisa iyo dheecaankiisa wiilashii halganka la galay dibna u taagay qaranimada Soomaaliya iyo in calanka Soomaaliya laga taago filla Soomaaliya maantayna uu ka dulbabanayo